السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا سو دوادا waxaan fiirinaynaa insha allahu tacaala the big beautiful biilka hadda uu baasay madaxweyne Trump maxaa uu ka bedeli doonaa dadka ama waayeelada ah ama dadka shacabka caadiga ah dadka low income ka ah maxaa isbedeli doona marka laga fiiriyo xagga kaarka caafimaadka iyo xagga marka laga fiiriyo tax cuts-ka iyo canshuurahaba marka haddii aan ku bilowno waxaa isu soo taray dhanka haddaan ku horeeyo waayeelada oo kale waayeelada ayaa waxaa la sheegay in kaarka caafimaadka Medicare-ka ay aad u isticmaalaan maadaama dad soo shaqeeyay ay u badan yihiin hase yeeshee markii Medicare-ka ma ka fargarayaa la dhahay programyada long term-ka ah oo sida maaragtay nursing home-ka oo kale oo dadka waayeelada lagu hayo so kaas maadaama uusan ka fargaraynin waayeelada badankood waxa ay isticmaalaan Medicaid marka maadaama Medicaid ay isticmaalaan waxaa aad iyo aad loo goynayaa lacag waxaa laga gooyay Medicaid programka $1 trillion ah 1 trillion baa laga gooyay marka tan waxay keeni doontaa baa la yiri in waayeelada guryaha lagu hayo nursing home-yada ay noqdaan kuwa badan oo kamid ah in la xiro sababtoo ah Medicaid-ka lacagta siiya Medicaid-kina waxaa laga goynayaa 1 trillion lacag fara badan baa laga goynayaa meesha dhibaato ayaa ka soo socota waxa kale oo laga yaabaa baa la yiri in nursing home-yada ay iyana ay keenaan sharci ah in dadka service-ka ay dib u jaraan oo yareeyaan oo ay maadaama aan lacag la siinaynin oo Medicaid-kii uusan lacag siinaynin marka waayeelada waxa ku soo socdo dadka especially nursing home-yada lagu hayo oo kale waxa ku soo socdo in Medicaid-ka lacagta laga gooyay awgees ay ku dhacdo qasaaro xagga ka imaan karta Medicaid-kii oo lacagtii ka yaraatay tan kale familada markaan fiirino maxaa iyaga ku soo kordhayay familada waxaa la yiri child tax credit-ka oo la qaadan jiray caruurta lacagta oo markii tax-ka canshuurta la xareynayo waxa ay ahaanaysaa baa la yiri $2,200 waxaana ay la socon doontaa kor ula kici doontaa sicir bararka iyo inflation-ka oo life-ka ku soo kordhayo sanadka hore dollarka intuu ahaa sanadka dambe ma aha so inflation-ka la jaan qaadaysaa $2,200 bay ahaanaysaa child tax credit-ka xagga marka la fiiriyo balaanka hadda baasay marka waxaa jiri doonta baa la yiri dadka aan social security-ga haysan oo Mareykanka ilmaha ku dhalay hatta haddii cunugaaga marka US born uu yahay oo Mareykanka uu ku dhashay oo dalka Mareykanka uu ku dhashay oo citizen uu ka yahay ma claim gareyn kartid sharciga waa diiday ma claim gareyn kartid cunugaaga inta ku dhashay waxa laga joojiyay dadkii inay cashuur ku xareystaan haddii aysan sharci haysanin oo child tax credit-ka iyaga ma helayaanba tan kale waxa ay biilkan ku jiray ilmaha hadday cunug aad dhasho oo kale babyga waxaa u furi kartaa baa la yiri banki accounti oo tax free ah baa u furaysaa marka $1,000 haddaa cunuga ugu rido dowladdana sanad kasto $1,000 bay kugu daraysaa waa match $1,000 for babies baa la yiri $1,000 baa lagu soo darayaa caruurta so account-kana waxa waaye tax deferred investment oo kale account adiga waxay rabaan basically lacagta in bangiga lagu rido oo lacagta bangiga uu hayo laakiin wax micnaal badan hadeer ma aha waa $1,000 sanadkii dowladda marka adiga $1,000 ku rido account-ka noocaas ah furato $1,000 ay kugu ridayaan isma qalanto waxa kale oo soo kordhay dadka waxaa la dhahay low income-ka ah oo dhaqaalaha fiican aysan soo gelin oo xaafadaha maaragtay low income-ka iyo waxaas degan oo ama income-kooda uu yar yahay wax badan iskama bedelayaan biilkan dadka ka faa'iidayo waa dadka lacagta haysta baa ka faa'iidi doona mid kale programyada lacagta laga jaray waxa ka koow Medicaid-ka waxa ka laba ah food stamp-ga ama SNAP-ka programka la yiraahdo supplemental nutrition assistance program kaasna lacagta waa laga jaray labadaas program ba lacagta waa laga jaray marka waan u tagi doonaa shuruudaha hadda ay soo rogeen
iyo sida ay wax u damacsan yihiin marka la fiiriyo xagga Medicaid-ka. waxaa Medicaid-ka ayaa san idin sheegay waxaa laga jaray $1 trillion lacag ah, waana taariikhda markii ugu horeysay oo Medicaid-ka dalka Mareykanka laga jaro $1 trillion lacag ah. taariikhda uu leeyahay Medicaid-ka waa markii ugu horeysay. waxaana dhici doontaa la yidhi in 17 milyan oo qof oo Amerikaan ah ay lose gareeyaan health coverage. 17 milyan oo qof, 17 million people baa waxay weyn doonaan kaarka caafimaadka iyo programmadii kaarka caafimaadka hoos imaanayay. waa qatar kale iyadana soo socoto. waxa ay soo rogayaan oo uu soo biilkan uu keenayaa wax la yiraahdo work requirement, shaqa inaad shaqayso si kaar caafimaad u hesho. sharcigan nidaamkan wuxuu soo rogayaa baa la yidhi waa the first time requirement laga dhigayo qofka u dhaxeeya 19 ilaa 64 19 ilaa 64 sano waxaa laga rabaa oo kaar caafimaad qaata waa in uu shaqeeyaa 8 saacadood bishii waa inaad shaqaysaa. so 20 hours a week waa inaad shaqaysaa. haddii aadan shaqayn marka maxaa samayn kartaa baa la yidhi waxaa samayn kartaa you can volunteer, meel baa ka volunteer garayn kartaa oo iyadana shaqo oo kale iska awn. so marka waa volunteer garayn kartaa 80 hours a month inaad soo volunteer garayso, 80 hours a month inaad soo shaqayso, iyo in aad 80 hours school aad aado. sidaa keliya ayaa Medicaid aad ku heli kartaa. waxaa kale oo la sheegay oo arrinkan cariiri u gelin doonaa dadkii Obama Care ka haystay. the Affordable Care Act programkii la dhihi jiray oo Obama Care ka uu keenay asaga naftiisa waxaa ku furmaya la dhahay buuq ku saabsan in dadka accessibility-giisa ay yaraato in la helo. qofka marka yaa kale oo waxaa kale oo uu soo kordhiyay biilka markaa shaqayso 80 hours a month, markaas ama volunteer garayso 80 hours a month, ama school aado 8 saacadood, waxaa laga rabaa in aad soo cadayso inaad shaqaynaysay oo cadeyntii aad la timaado si joogto ah. waxaa marka exemption laga siiyey pregnancy haddaa tahay haddaa qofka hadduu uur leeyahay, hadduu disable yahay oo disability uu haysto, iyo haddii uu ilmo 13 jir ka yar oo guriga uu ku hayo. kuwaan naftooda waxaa la dhahay programkan wuxuu dhaqan gelayaa December 31 2026. marka kuwaas naftooda waxaa laga rabaa baa la yidhi in ay soo cadeeyaan more documentation. waa documentation extra ah baa la iska rabi doonaa dadka Medicaid-ka qaato. dadkaas waxaa laga rabaa baa la yidhi inay keenaan pay stubs, jeega ay qaadanaysa dabadiisa. waa inay proof gareeyaan in ay la mid garaynayaan oo ay u qalmaan weli programkii Medicaid-ka ahaa oo requirement-gii inay u qalmaan. iyo sidaas si lamid ah they also have to be inay muujiyaan inay programka eligible u yihiin iyo in kale. arrinkan waxaa marka ka hor imaanayo isbitaallo waaweyn iyo dadka oo dadka daaweeya dhaqaatiirta iyo waxaas dhibaato hor leh bay ku noqonaysaa baa la yidhi. tanna waxay keeni kartaa 6 bilood kasto waa in la sameeyaa eligibility requirement every 6 months. meesha marka hore warqadaha la keeni jiray sanad kasto hal mar. marka biilkan wax badan buu xagga Medicaid-ka ka bedelay, kaarka caafimaadka waxbuu ka bedelay. waayeeladii kolley annaga the nursing home badana waayeeladeena ma aadaan, laakiin waayeelada nursing home-ka lagu hayo oo meelaha waayeelada lagu hayo iyo kale oo Medicaid-ka lagu hayay iyagana wax badan buu ka bedelay. waxa ugu muhiimsan waa Medicaid-kaas iyo kaarkii cuntada oo isagana la soo yareeyay. so biilkan waa sidaas waxa ka faa'iidaya la dhahay oo faa'iidada ugu badan ka helayo dadka taajiriinta ah ee dalkan Mareykanka degan oo lacagta haysta. kuwaas ayaa ugu badan kuwa ka faa'iidi doono. biilkanna wuxuu soo kordhin doonaa $3.4 trillion oo deen ah buu ku soo dari doonaa deynta Mareykanka, national debt-ka deynta lagu leeyahay Mareykanka. marka intaas ayaa ka cusub insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin.
asxaabta ila soo qariibtay oo markaa soo bilaabay ilaa hadda ila sii joogtay thank you very much waan idinka mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu